shirkan jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho gudoomiyaha isbahaysiga dib u soo nooleynta dimuqraadiyadda Jubbaland Cabdullaahi Cilmooge Xirsi ayuu kaga hadlay hadal shalay ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow kaasi uu ku dhaliilayay siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya kan qaliijka Cabdullaahi Cilmooge Xirsi ayaa warfidiyeenka u akhriyay qodobo dhowr oo kaga hadlayay hadalkii Axmed Madoobe aniga ku hadlay magaca JDRC isbahaysiga dib u soo nooleynta dimuqraadiyadda maamulka Jubbaland ayaan rabaa inaan idin la wadaago aragtida isbahaysiga ee ku aadan arrimo dhowr oo madaxweyne Axmed Islaam ka shanqariyay wasaafadeedka uu shaqo ku qabtay soo laabashadiisii magaalada Kismaayo kow arinta la xiriirta gurmadka qaranka ee fatahaada biyaha ee ahayd in la soo qiimeeyo dhibka dhabta ah ka jira meesha wafdiga uu hogaaminayay wasaaradda hoggaanka waxaana si daraa in loo diiday in ay maxaa deegaan ay ku khasbatay in uu khasab ku dago soo gacan ka helaya dabcan gudoomiyihii gobolka Gedo iyo shacabkii meesha joogay oo muxuu ahay u baahna waxay dhaba u qabay arrinta muxuu ahay caawinaada oo imaanaysa dhanka dawladda waxaan ognahay dalkeena in muxuu ahay biyo la'aanna ay ahayd sanadkii hore soo martay baan haddana ay fatahaad baan soo martay maadaama maamulkii isagu uusan u hadlin gobolka ay dadka dhibaatada gaadhay fatahaada sida dhigiisa madaxweyne waaro inuu naga fogeyn Hirshabeellaha waxaa mudnayd oo fiicneyd inuu isaga aamuso inta uu leeyahay daaqad baa laga soo galay muxuu ahay albaabka laga soo galo aniga kaliya hal igu yimaado magaalada 6 kilomitir oo suuq mahadkay waxaan leeyahay lahaa inaan dib u weydiiyo madaxweyne Axmed Islaam kulli ixtiraam 15 degmo ay ka kooban tahay Jubbaland imisaad ka tagtay sidaan wada ognahay oo ka tagay madaxweynaha Kismaayo Doolow iyo Buulaxaw waa 120 marka hadduu madaxweynuhu ummadii u tagay shacabkaas 80% oo san arag miyay mudan tahay inuu madaxweynuhu u diido in la caawiyo shacabkaas isaga oo ku hadli kara afkooda uu u tagay 6 sano ayuu marahayaa kuma uusan laaban arrinta khaliijka waxaan u deenayaa ma aha in walba inay farxad geliso in la raaco qadar laakiin waxaan u deenayaa haweeney waa Soomaali baan nahay mas'uul baa jooga isagii baa doortay sida aan yeelay in dhaxad ka noqono ayuu doortay qadar doorashada anuu maxaa in la raacay moogi laakiin waxa weeye eedeyntaas waa wax gaar ah oo aan marwayna ka jawaabo laakiin haweeney Soomaali dhaxad bay ka tahay baa qoran arrintaasna taas ayaan uga baxaya madaxweynuhu 8 casho jiray imaaraadka aniga qodaydu markaas waan joogay Dubai baan joogay waan la socday madaxweynaha dhigiisa Abdulwali Argaas wuxuu qabtay hor saxaafadeed markuu dhaxay wax dhoomasho ama uusan sameeyay madaxweyne Axmed Islaam waxa weeye waa madaxweyne 2 milyan oo qof oo meesha uu qanisaneed maamulka uu qanisanaa dalka madaxweynaha munaasab ma ahayn inuu dhunto kama hadlin imaatinkiisii balse wuxuu u gudbay Addis-Ababa isagoo aan dib u soo laaban dalka ma hubo in madaxweynuhu haysto ogolaansho arrimaha dibadda la xiriira Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV magaalada Muqdisho.